هذا ما أنا بس أركز على لايف واحد غني زمركي على لايف كله فطمش السلام عليكم سومالي مول بقى جوكتين اسبدلكم عصب soo dhaweynayna iyo Soomaalida cusub madaxweynaha Farmaajo waa taageersanahay meel walba aan joogno marka waxaan leenahay maxaan ku rahdaay insha Allah ilaahay mustaqbal cusub oo ifaya ayaan Soomaaliya u rajeynaa abaara in ilaahay dad ka dulqaado nikliya daahir calso wadankan Holland baan soo joognaa magaalo bareedle oo degan yahay maxaan ku rahdaay yaani guriga kama soo baxo garaabadan uu cunaa marka 2 kiilo garaaba gurigiis loo geeyaa si uu soo bixin marka dadka wax weyn uu haysto oo ninkan inuu saxafi yahay oo saan yahay waan saas ah ma fahant waxaan adduunka u sheegayaa ninka daahir calso leeyahay nin nolosha ka dhacay inuu yahay aniga la fiiso cadcada qaana waxaan ku rahdaa magaalada bareedle aan deganaan jiray ninkaas waxa weyn noloshiisa oo dhanba waa garaabo iyo inuu computer dul fadhiyo oo dad Soomaali u caayo marka oo maartay macnaha oo Soomaaliya isku diro oo qabiil u kala qaado waana qabiilista aad u weyn ma fahanti marka dadka noocaas oo kala in la iska qabto kii kale maxaa jiray maxaan ku radaa calso ma hayna arab nikliasna waa la mid daahir calso waa soo tababaray oo yir dadka caay Soomaalida bahdil Soomaalida wax ka sheeg isku dir qabiilistinimada iyo waxaas oo ninkaas uu ka bartay faan asna waa tu kale mujrim ah in la iska qabtaa loo baahan yahay marka dadkaas oo kale in dhageysan anaga aan ka naqaana waa dad nolosha ka dhacay weey maxaan kaga sheegaynaa gurigiisa loo geeyaa maxaan ku radaa 2 kiilo garaaba bil dhan meeshu ku cunaa garaaba 2 kiilo markii ka dhamaatana mid Ethiopian orama waca ma fahanti markaas maxaan ku radaa 400 waa ku hayaa 2 kiilo kala garaaba ay keen guriga loo geeyo ma ka soo baxo website-kaas dul fadhiya waagacusub.com hadeertaana wuxuu bartay live wax la yiraahdo oo Facebook macnaha live la soo galo Farmaajo saan way Farmaajo asoo waxba qaban ninka ay ku bilaabay waa iska dareemi kartiin asagoo macnaha hadda aan wali la dooran xataa ninka maartay ku bilaabay ninkan waa qabiilista ninkan waa saan marka in la dhageysto ma ahanba Soomaaliya maanta Soomaaliya isku hor keeno rabaa dadka inuu isku hor keeno Soomaaliya inaysan degin in maartay saal isku haysto sheekadii qabiil 1991 hadda noo soo celin rabaa marka waxa loo baahan ninkaas oo kale macnaha in gacan bare iska qabataan horta daahir calso wax oo maartay hadda lagu mashquulo ma ahanba xaaladiisu dhaana la socda daahir calso isku wadan baa deganahay ana ka warqaba daahir calso guriga kama soo baxo waligiis Elias daahir calso stationka bareeda jooga ama Amsterdam lama arkin waligiis daahir calso lugana kaligiis meel socda marka daahir calso ninkan daahir calso liya dadkiisa waxaan u sheegayaa inuu meesha Netherland ku wareersan yahay oo nolosha ka dhacay hadii ay maartay macnaha ay in yaro maartay macnaha ay damira ay leeyihiin ama wiilkooda ay ka naxayaan waxaan kula talan lahayn inay u yimaadaan nolosha uu ku jiro ay arkaan ay maartay macnaha wadaad ugu wacaan oo quraan la saaro wadankiisa lagu celiyo ma fahant oo la yiraahdo waxaan ka baxo Soomaaliya qorqoray Soomaaliya isku diray faa'iido kuuma jirto ka bax la yiraahdo dhaqan cilmi u baahan yahay ninkan u haysataan ninkan macnaha waa saan way daal calso balaayadu uu afkiisa wuxuu iska dhigayaa nin booro isu saaraya war ninkan waligiis Elias xataa ma shaqaysan bidaraf inta tagay waligiis Elias Netherland ma shaqaysan bareeda khamiita bareeda way ogtaa ninkan nin waalan buu qoran yahay aydiisa iska siiya ma fahant ninka u haysataan macnaha nin oo maartay inuu yahay saxafi weyn oo zaano waligiis Elias macnaha u tikeeri kama balaga joojiyay maadaama uu qoran yahay nin waalan inuu yahay marka waxa ay sheegayaa Soomaaliya maanta in ay hore u socoto abaaraha dadka masaakiinta Soomaalida abaaraha oo abaaraysan intiina qurbaha joogta aad isku tashataan oo maartay aad lacag iska aruurisaan inaad maartay macnaha aad dadkiina aad caawisaan oo dantiina aad garataan dawladda cusub la taageero ashaabka in la dagaalamo Ethiopia in meel iska saaro iyo ajaanibta kale ciidamadii maartay macnaha Soomaaliya mushaar u baahan yihiin in lacag la isku aruuriyo annaga aan isku tashanaa loo baahan daahir calso kala macnaha hadalkiisa inaan waxba ka soo qaadin intaan iyo carab kale leeyahay carab marka waa kaas asxaabteedu kulligooda hawada aan ka salaamaya wixii dambi Allah naga cafiyo waxaan ku raahdaa daahir calso oo kala jaajuus oo maartay maxaan ku raahdaa yaani maxaan ku raahdaa aan damir laawaha ah oo ibtila Soomaaliya ka dhalatay way daahir calso kale noocaas oo kale macnaha in ay uraareeyo oo la iska maartay aan la sheekaysan faan baa loo baahan yahay فهمت Soomaalida waxa ogeysiinaya daahir calso inuu yahay nin nolosha ka dhacay oo 2 kiilo garaaba gurigiisa ku orama ka dalbada ma faan bil kasta 500 eray ka qaataan oo tikeerinkiisa
asaga dhan wuxuu qaataa maxaan ku rahdaa 750 ala siyaa utkarinka waaliyu sheegtay marka shaqo dhan ma u diraa khamiita barada waa yaqaan caan buu ka yahay wadanka wallahi billahi tallahi marka ninkaas saas weeye xaaladiisa la socda Soomaaliya ninkaas macnaha waxa in Soomaalida waxa in sheegay dadka ay garan ya ها عرب كاسنا وامد اسنا جاهل او ابركيسه waxba fahansaneyn daar cali suuga waxoogaa dhaamabo infaant asaga soo tababaray yiri waxaan iyo Soomaalida waa la caaya iyo Soomaalida isku diraa iyo maxaan ku raayay dawladda mucaarad iyo ma fahanti daar cali suugu wuxuu isleeyahay dadka caayis xasan sheekh ha xasan sheekh shan sano mucaarad ya hal koob shaax xataa ma helin faan qof caayis wax ku siinaya hadda wuxuu isleeyahay farmaajo caay ha ka cabsado lacag ku siiyo farmaajo waxa soo kale waa ogyahay ma faan noocaas oo kale qurbaha ku wareersan farmaajo weligiis aliis wuxuu joogay Mareykanka nooc iyo daayir cali soo kale oo qol ku xiran oo aan naftiisana wax tari karin dadkiisana wax tari karin uu yaqaan wallahi la faan wallahi war adduunka waxa uu sheegay daayir cali soo intuu yahay oo maartay oo nolosha ka dhacay waaba li wada dhageysanayay marka waxaan ii sheegayaa asxaabaysa oo la socda waa kaasa hawada in ka wada salaamaya insha Allah khayr baan isku ognaay wixii dambi Allah naga cafiyo la share gareeyo waxaan in sheegayaa videogan in la share gareeyo faan si adduunku ogaa daahir cali soo wuxuu yahay annaga jaar annaga meel isla joogna ana daahir cali soo la fiiso cad aqaana war bareeda maraan degaan jiray ninkan koodii horeysay waa is aqoon jirnay waa is sheekaysan jirnay faan ninkii markuu galay waaga cusub iyo inuu maartay yaani oo dawladda wax ka sheegay iyo xas ninkii qolka guriga waa ka soo bixi waayay tartiibtiisa waxa weeye gurigiisa kama soo baxo aydiisa iska siya nin waalan buu qoran yahay maban dawladdu wuxuu sheegay inuu waalan yahay oo maartay macnaha aan waxba laga dhageysan oo maartay xataa qof naag Hollandees xataa guriga uga shaqeysa oo zolq gareen wax la jirin maban naag Hollandees kaar maban oo loo qabtay dawladda maartay macnaha cuntada u karkarayso oo ninkaan maartay macnaha shaati cusub loo shaatiga dharka waa laga mayraa dharka arkiisin uu ku labisan yahay markuu maartay macnaha oo marmarka qaar kood ninkaan iska labisan Soomaalitaan waa loo dhaqaa naag ba shaqaalaha loo qabtay dawladdu u qabatay maban marka ninka waa nisaasa ilaahay maartay macnaha waxaan leenahay dadkiisu hadii adduunka ay ga maqleen waxaan u sheegayaa ninkaas daahir cali soo leeyahay ya inay u yimaadaan fahant maxaan ku raadaaye ay arkaan nolosha uu ku sugan yahay xaalad uu ku jiro inay arkaan asagana awood u san lahayn buu isbidayba farmaajo asaan xasan sheekh asaan adu maxaa taal isweydiyaa moogta wax uu yahay haba yaraatee weligiis aliis ninkaas inta oo sameero tagay meel shaqa u baahan xataa ma dhihin fahant marka waa kaas asaasan isku ogna asxaabi khayr aan isku rajeynaya hameen wanaagsan kulligan waa salaamaya dadka loo soo duceeyo abaaraha la iska caawiyo Soomaaliya garab gashto tuugaas oo kale iska qabto saasaan leeyahay dhamaantiin waana mahadsantiin videogan la share gareeyo si loo ogaado daahir cali soo wuxuu yahay